بسم الله الرحمن الرحيم maanta waxaan saxaafadda iskugu yeeray saarkaysan haweenkan waa tuugo xamar ka soo baxday oo diyaarad arbacadii ku timid waxaana hagayay sida arkaysan ninka halka taagan oo janso aha wuxuu ku wargeliyay kadib markaanu la dirnay tuugadii Kismaayo oo ka ciribtirnay in wax tuuga laga waayo waxay yimaadeen arbacadii jamcihii iyo sabtidii iyo axadii bay waxay magaaladu ka furiyeen dadka arkaysa dhaceen iyo lacag dadku wax badan sheeganayaan laakiin anagu la $1800 lacag u dhigantaan yaanu heernaa saadarteed baan saxaafadda ugu yeer marka dadkan maxay ahayn maxay qabanayaan dadkan waxay noo sheegeen inay professional inay ka shaqaysan jireen tuuganimadan muddo 2 sano aan xamar qaabkan kaga shaqaysanayeen la yaabna ay ku noqotay in muddo 68 saacadood gudahooda in booliska Kismaayo ku soo qabto ayagoo 2 sano kaga shaqaysanayay tuuganimadan Muqdisho oo walina booliska uu soo qabanay Muqdisho su'aal aan weydiiyay wali xabsi iyo maxkamad midna ma leegay nalama geemayna nalama qaban annaguna diyaarad baa keentay arbacadii waxaanu qabanay axad ayagoo lacago iyo dharka aragtay waxay ka qaateen bacdayaal waa haween haddana ma hubeysno xukumay qaadin qaabka ay ku qaadeen waxaan garan weynay hasaatee waxaanu ilaahay baa mahad iskale waxaanu ugu mahad celinaa ciidanka booliska oo arintaas ka shaqeeyay gacantana ku dhigay hantidii iyo tuugadii intaba insha Allah si degdeg ah u horgoon doonaa maxkamadii ku shaqada lahaa anagoo ku wadno qalabkoodii iyo wixii aan ku qaban qaabka wax u qaadeen macnaha waxay imaanayaan qofka bacdaha gadanayo shay bay ka gadanayaan waa laba isku socdaan waxa la oranayaa shaygan loo keenay qofkii markuu dhaqaaqo tuba qaadayso dharkii haddana dharka asaga ha baa la siisa lacag baa la qaadaya lacagtii mid baa luusiya dhar baa laga gadanaya fanaanad baa laga gadanaya waxa laga qaadaya dharkan waxa ku jiro bundado macnaha baatiyaal ah iyo macawsiis ku xiran 40 oo baalka saxda ka weynaanaysa marka tiraado dadkan ayagina waa qiraal waa wareysan kartaa waa ayaga laftooda weydiin kartaan lama qasbin lama jirdilin lama dhaawicin lama dharbaaxin ayaga qarinayo inay lacag inta la qaadeen dharkan qaadeen qaabka ay ku qaadeen inay 2 sano muddo ay ka shaqaysanayeen inuu hagahayay ninka kana soo qaaday airportka una sheegay Kismaayo inay tuuga ka jireen oo si sahal wax loo heli karo saa ugu bay u yimaadeen gaalka cayaanu tagnay baa leeyahay qaar kamid ah oo kaga soo shaqaysanay Muqdisho aanu 2 sano kaga shaqeynay waa koox silsilado isku xiran way laakiin waxa la yaab u noqotay baa in muddo ka yar 68 saacadood in gacantana lagu dhigo waxaan qaadan weynay baa leeyahay waa ayaga laftooda weydiin kartaan mana qasbo waa dhihi kartaan wax jirdila waad wareysan kartaan haween booliska jira oo baaray hanjabaad iyo in wax jirdila loo geysan meeqa maalmood marka ay dadka xabsiga ku jiraan xabsiga waxaanu qabanay galabtii niskii dambe ee xadda sidee inuu ku soo gashay maxkamadda xilliga aanu macnaha maadaama aanu qabanay waxa 48 saac baa ka soo wareegtay shalay baan tacnay inaan u sameeyno xabsi xalaaleen wax leeyahay sababtoo baaritaanka ay wali alaabta naga dhimantaa oo dadkii lacagihii la sheeganayay yaa qaar sida nin sheeganaya 20,000 oo Kenya money ay $500 ayaguna ay lacagtaas inkirsan yihiin marka xabsi xalaaleynta shalay maxkamadii baanu saleeli weynay airportka ku maqnaayeen waan qofku marka 40 anu qeynuku wuxuu nasaynayaa inaan hayno qofka 24 saac hadda maxaa go'aan aad ka gaaraysaa go'aanka kiiskoodii gungaarka aanu sameynay berrina maxkamadan horgeyn doona maxkamadan go'aanka qaadan doona insha Allah taala wax yaalana nal dhaysas aan u maanan wax oo la xadaama yaa idin hadi wiilkaas xageed ku soo degtay gurigiis ku soo degtay xageed hawsha ka bilowday suuq weyn magaalada waayay miyaad hubaysneedeen ya hubeysa hore ma wadan wax ma wadan sideed wax ku dhacaysan waa kala hormareen marka laba gadaal jirta labada hore jirta qof isku aadinay labada gadaal jirtan wax meesha la qaadiyay waayay meeqa bakhaar ama meeqa goob meherado kale yaad sidaas ku dhacday suuqa wax badan asaas soo dhacan waayay marka
qaab ay ka lagu soo anagu tigida baasaboorka goosanayna nol soo qabtay oo inaad baxdaan waayahay alaabta aad soo xadaan ama soo qaadataan qaab ay ka yaad u sii miyaad iibin jirteen mise waad isticmaali jirteen maya xamaran ku iibirna oo xamar badanteen nadigisan inuu israacayna suuqa la tagay waa la isboojeenay qaarna waxay qaadayeen xasmi boojada qaab nooc u sameeyay waa la hadlay qofka yaa la hadlay qofka laba qof wada la hadlays kadibna qofta kale waxay qaaday dharka see marka qofka loo hadla loo mashquulina marka waxaan rabnaa inaan gadano wixii la baayacay marka ma baayac inaan dhar meel dhigano dharkaan rabnaa naga gado kadibna waayaha ma dhahayo ninka lacagtii aan ku heshiinaynaa lacagtii sheega halaas maya dadka way bixin anagana waan ka daba bixin dadkii kala kuwii kala qaatay kuwa kala ayaga la taqaabaya haa waxba kuma sameeyna anaga dhar inaan meel dhigano ma ogi oo dhahan dharkaan rabnaa naga gado hay meeqa isii dharka noo soo bixiya qofti way mashquulsantaa wixii noo soo dhige markay soo tahay anakan halahaan rabnaa hay soo baxsado wixii aan soo bixinayna meesha dhigayna marka meesha dhigno beecaan la gaarayna asina beeco sheega beecaas haday tahay marabna beec ka yaraan rabnaa waxaas ka yar ma arkaysiin ma yana kaas ka yaraan haddaan ku soo aragna camal oo lagu soo arkay sideen uga tageen yaa qaaday labada kale oo gadaal ka imaato dilaakoos iskashina iska baxay gabdhahan walaalahay aniga markay soo degayeen gabdha ganacsata ayaan u maleynaya aniga iska dhigeen barnaamijkan tuuganimadan anigu kuma ogeyn gabdha walaalahay ahaayeen waxay ugu soo degeen inay ganacsato yihiin oo ay alaab inta ka gadan rabaan oo ay gobollada u sii qaadi rabaan kadib aniga sida alaabtaan ugu arurinay daraad shalay galabtii ayaa nin dariskayga ii yimid wuxuu yidhi alaab baa maqanay oo gabdhihii aad meeshaan ku soo arurinaysay tuugay noqdeen oo alaab bay qaateen war ma dhici kartaan yidhi anaa ku tusayna keenuu yidhi meeshaanuna keenay gabdhihii magacyadoodu waa la ii sheegay ayagay noqdeen alaabtii ahayse ugu soo wareejiyo yar marka si eed la'aan oo buuqla'aana nin deegaanaa tahay adiga aysan dhibaato kugu gaarin waayahaan idhi alaabtii oo dhammeed baan u keenay waatanaa idhi alaabtii oo gurigayga taallay waxaan ku aaminay ayaga soo maa ayaga horay xamar baan iskugu naqaanay laakiin shaqooyinkan kumaan aqooninoo micnaha dad daris koraan ahayn anu nin magaalada iska soo xamaashaan ahaa galabtii markaan soo laabtana xaafadda ugu yimaada iska wareysta caafimaadkiina ka warrama kasii gudbaan ahaa maya inay ganacsato yihiin baa anigu aaminsanaa anigu sidai aan aaminsanaa ayaguna ii sheegeen ganacsataan nahay dharkaasaan gadgadan rabnaa sheeshay aan iskaaga soo gadanaynaa markii alaabta noo badato kadibna inaad gaari noo soo saartid baan rabnaa sidaas bay igu rajeeyeen marka waxaa u soo baxnay inaa shaqada aan ka shaqaysano shaqada tuugnimada inaan ka shaqaysana xamar ugu imaanay wiilkan gurigiisa ku soo degnay marka anagana alaabtan iyo waxaana soo qaadanay dharkan iyo laba iskula soconaa marka labana waa waxeenaysaa labana way qaadaysaa marka waxba ma ku suubanayna caadi ayagoo saan u joogan waxbaa ka gadanayna wixii kalena waa ka qaadanayna ilaan dadka waxa ay gadanayaan ay isleeyihiin maahno saasaa anagana u qaadayna dadka inay wax gadanayna u malaynayaan mugta wiilkaana u imaano way fiican tahay dhahay sidaa ugu imaanay marka saas loogu imaanay haddana daruufaan ugu geyso anagana shaqo kale aa qabana ma haysano asixadow noogu wicin ganacsi loo ogaa bis anakaana saas dhahnay waxbaa gadnaa bisaan dhahnay anaga